السلام عليكم asxaabta habeen wanaagsan ku soo wada caawi ciyaaraha waxaanu soo qaadan doonaa ciyaaraha goordhow iyo sheekooyinka ugu waaweyn baan eegi doonaa slot ilaa hadda wax weeyaan horyaalkii October ayaa sii dhamaanaysa ilaa haddana Liverpool hal uma hayo ninka waa aad baa looga yaabay loo dhaleelayaa Arteta laakiin wuxuu qishay sanadka inuu sanadkiisii yahay classic baanu eegi doonaa waxaanu eegi doonaa sidoo kale odayaashii xalina waalay Messi ilaa Cristiano Ronaldo iyo guud ahaan warar kale oo ku saabsan maqaarka asxaabta subscribe kana saara ku channelka cusub ku jiray sheerta iyo laagtan isku dirgan saxadka ciyaaru jecel bal barnaamijkeenu gaarsiinaa habeen wanaagsan asxaabtaay bal ciyaarihii baan kabti karit ka dhigaynaayo kulay wax weeyaan waxa laga ma qaban karay 60 markay soo galaysa bal warkiina habeenimo baan sii kala tuuranayna runtii oo ay jiraan warar ciyaarahan ku saabsan goor u dhacaya iyo warbixino kale oo ku saabsan guud ahaan Kamal Dariga waxyaabaha ugu weyn Liverpool iyo waxaan sugaynaa runtii habeenka iyo Manchester United wax weeyaan waa kulanka indhaha lagu hayo saacad u dambeeyay ninka Manchester United ma taqaana runtii yani derbigan u ciyaaray 22 ciyaarood isagoo ka hor imaanay Liverpool Roy Keane wuxuu sheegay Liverpool in pressure-ka uu maanta iyagu saaran yahay inkastoo uu yahay kulankan ay labadan u ciyaarayaan يعني كلهم كأوين سيسن كأوي هؤلاء رنتي سكت هذا ما ينتظر جبناته لكن مر بكلهم كان ففردس ولا وكيمان كران لكن لو ينتظر حلا هي هداد ربطان أمر أرسنال يرى معارض كو سيتي يوح نوعه وحلا هداد ربطان مانشستر عاود معناها كوبش جريسان منكو إيش كل هذان وإن مانشستر جول لصهر مرتاه هدي جول لجهر مرة واقلبت waliba qaacidada Liverpool hadda lagu garaaci karo ida batawar badan inta ku jiro ma aqaan wajiga la soo bixi doonaan maanta ilaa waa soo nasay ayaantan tawburu wuxuu bedelo wala arki doonaa yani isbedelku la yimaado asaga alarmiga u yeeray ayaantan indhahu mirig ka siinaya waxa la ogaaday in koob kooxdiisii uu ku duulay uusan asaga waxba hayn baa la ogaaday ilaan kooxdii koob uu boosaxagar ku shaqaystay xaga isbedel markuu sameeyay ciyaartoy soo gatay waxa wareersan yahay marka nin walba oo Liverpool raba inuu ka badiyo ama xataa bareejo ka hela raba Liverpool وإن هذا الجول إيجو أيجا أشخ جرو درتها وش وسيها الحب ليفربول يا أنت هالكاس كده مقانت هاي هذا إذا مرتين كم معارض الكاس يسوى هذا إذا مرينا آخر ساعة بريجان ستيل بريج لما يبعد روف وحنون كله مركب ما يونايتد وإن إيجو إيجول كهر مران هذا أرتيه جول لجو هر مريو إلى أروري مركب عدو بهذه المانشستر المعارضة هذا المانشستر تاجري سيعاوة هل جول اسكويل على ستة اسكويل على لسان وبهانتين هل جول اسكويل على ستة وإذا كنت كهر مرتان اسكويل على لسان بدو بهانتين هذا يدي مرتين ويدي مرتين هذا يدي مرة سنة برايجو كبوا مركا راي وحولية هاي لكن ليفربول برايجو بساريها إلى مرة جاب يكون بحن عيار سوحي قال الله تومي سيتي ويب بدي سي أرسنال ويب بدي سي ما عنده برايجو بسار بروح دي بدين ويان والله يا بقول له ريال كودا ميدا كله وحلو إذا أرني سلوت أكتوبر برتبه هذا يلا مريا إلا هذا أنا ما قرنا يكحدي سوق فيها إلا هذا ما يقانو كو يتمكيس عياريان تطلع كمان يقان كو يتمكيس عياريان ما يقان وروحان فيرس كان يروح واقسين dadka hadda yimaaday kooxda way qaseen ya marka Paul Merson wuxuu aaminsan yahay yani ninka la yiraahdo slot ya iyadoo October la marayo xataa maanta inuu garanayn 12 ciyaaryahan saf joogta ma qabiyo kula runtii maanta ama kooxdiis ugu fiican oo ciyaaru ku badin kara xataa ma yaqaan mid kale wuxuu kula taliyay Liverpool in ay ma taqaana dib u soo celiso qadkeedii dhexe ee xaga horeelka ku guuleysteen ma la xasuusamay isla markaadna uu kala bedelay oo macna vers buu bixiyay ayuu saddexdii sida falanqayaashu sheegeen uu sameeyay istiladan uu ka laabtay marka wuxuu ku leeyahay ninkan October iyadoo la maray xataa kooxdiisa u shaqeyn karta ama kooxdu ku badin karo xataa ma yaqaan uu leeyahay runtii marka waka waxay noqon doontaa markii ugu horeysay muddo 12 sano kadib hadii laga badiyo waa Bruno Alabugwe Manchester United ay badis ciyaartan oo Liverpool laga badiyaa waxay noqon doontaa markii ugu horeysay muddo 12 sano oo Liverpool afar ciyaar isku xigta la garaacay noqon doontaa waxa ugu dambeysay Liverpool afar ciyaar la garaaco 2004 ugu dambeysay waa hadda muddo laga joogo 12 sano marka loo eego kooxaha Big Six-ka yani koox kasta marka ugu dambeysay afar ciyaar la garaaco إن هذا الليفل صح عيار رسول قراعي ما نزل سنة كور وجود بيس أفر عيار حرين لقراعه ما ينت هل سنة كور إنه وجود بيسي مرة وجود بيسين أفر لقراعه جلسي لا بس سنة كور وجود بيسي أرسنال تضرب سنة كور وجود بيسي الوري أفر عيار لقبضي حريرة أرسنال صار قد أيام تان ليفربول كوي تمسنا وجود بيسي معناه واحد صورة قال هين ويا بقولون أنت ما أنت إنه ما كان لقاه سبيعه إن كستو تاتي كده وربو نيكل إنه بدله بالله رنتي عاو كبدل لونج بول بولا عياري دونا استيل برونو بقى أرجورة تيكر كا أما بنتي تيكر ككحدة marka Liverpool markuu 12 sano kor ugu dambeysay in afar laga badiyaa Rooney ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu dambeeyay ama markii ugu dambeysay Man United ay ku badiyso gagada Anfield 10 sano ka hor 2016 isaga ayaa saaruqas ugu shubay isaga ciyaaruhu ka fariistay
توبر دور من نقضي العزلي حتى جول هيو هبين كعياري دونا مانشستر جول كوجري عصب برياس من افرسن وجري marka ugu dambeysay Liverpool United ku soo badisay gogooda ka ee Anfield marka waa kay kulay Maxamed Salah xudis waa ka jaban tahay laakiin ogow Maxamed Salah aad buu jecel yahay United in ka badan ciyaaryahan kastoo United jecel yahay ayuu isagu jecel yahay wuxuu ka dhaliyay kulankan yani marka la eego ciyaaryahan goolasho ugu badan ka dhaliyay darbigan lamada labadan dhex mara United Liverpool dhex mara ninka ugu badan taariikhda kulan goolasho ugu badan dhaliyay Maxamed Salah weeyaan 16 gool ka dhaliyo nimankan aad buu ugu helaa mid kale Jamie Carragher wuxuu qabaa Ruben Emeron inka waa iska leeyahay buu leeyahay runtii in 3 sano uu sii joogi doono laakiin cidna ma aaminsan buu leeyahay runtii ma rumaysna in ninkan 3 sano soo aadan tababar Manchester u ahaan doono leeyahay runtii yani ninkan ma qabo ballanqaadkii Sir Jamie Redcliffe in ninkan ku sii doonto United wuxuu leeyahay ilama ahan buur kan 3 sano United joogi doono saxna waa maxaa yeelay hadda ka hor Ten Hag intiisan Liverpool markay ka badisay la raacdeyn yaa ka hor waxay sheegeen in ninkan kalsooni siiyeen oo yani raacdeyneen weyn raacdeeyeen marka Liverpool waa lagu yaqaan intaan tababar meesha ka muuqdaba markay Liverpool ay guuldar ka soo gaartay maalmo kadib 22 maalmood 3 maalmood dhowr iyo 10 maalmood kadib waa la ceerin jiray marka guuldar ciyaartan timaado yaa weliga baa leeyahay ninka kaayo saacad dambe lahaa Ruben Emeron wuxuu lahaa ujeedkana duwan wuxuu leeyahay wuu runtii inaan ku guuleysano Premier League marka taa wata wuxuu ku soo korwar arki doona kulli ciyaartayo maragis qudooda caawan soo sugayna runtii Mbappe iyo Masantuano iyo finish dhamaantood ku soo bilaabanay ciyaarta leeyahay xataa ninka la yiraahdo Jude Bellingham isaga xataa uu ku soo bilaabay habeenka leeyahay runtii marka waa ka saacad ugu dambeeyna waxa weeyaan Andy Curry wakiilka caanka ah ayaa wuxuu sheegay 2007 finish junior in uu Barcelona qarka u saarna uu ku biir rabay ilaa Madrid ninkay abduubatay waan la kulnay finish junior macnaha Barcelona ahaan waan la kulnay iyo macal wakiiladiisa wax walba okay ahaayeen ciidanku xurun Barcelona ku biiro ready waxa wax walba dhanay ahaayeen buur macnaha laakiin kadib ninkii waa isgidiyba familkiisii iyo wakiiladiisii bay aan boo isgidiyeen buuriyo ma sheegi karna sabab isu gidiyeen laakiin go'aanku ixtiraamayna kulli watan ku badacad buuri ninkii waxaan aragnay Madrid ka sii dhacaya marka Barcelona in lagu boodo wax cusub ma ahan oo cunugii daraad heshiiskiisa xataa ku booday wiligeeda lagu boodi jiray cidiyo macnaha kii Nick Williams marka taas wata habeenkuna classic waxa ka harsan kaliya 7 habeen macnaha kulankan soo socda horyaalka waa classico markay labadanu ciyaarayaan Barcelona hadda ku meel gaar horyaalka haysa hadii kuwan caaw soo badiyaan oo iyaga dib ugu laabanaya taageerayaasha kubadda cagtana waxay leeyihiin runtii yaa waarmiyo Yamal dhaafi kara Messi wuxuu Messi Bruno ka qabsaday ama wuxuu Barca ka sameeyay miyuu Yamal ka sameyn karaa mid kalena wuxuu leeyahay runtii yaa mid kale soo booday wuxuu leeyahay lama yaabay suuro shalay in Yamal la bedelo in wuxuu la ciyaarayay gabarta mid kale wuxuu soo booday wuxuu leeyahay Yamal waa next Neymar yaa waa Neymar ka xiga kaasoo wayiisa dumar ay mataqaanaa runtii ay ka jiidisay Banooniga saacad dambeeyay saaxiibadiisa hadana waxa lagu arkayay garoonka ciyaartii shalay Lamine Yamal qoftiisa garoonka lagu arkayay marka wala yaaban yahay tababarkii waa joogtaa banaankiisa iyada ka wada keenta ciyaartii garoonka korkiis way joogtaa magaalkan isla joogan everywhere Yamal iyo qoftii ya marka kubadda cagtu macna dadka Banooniga oo yani taxliiliya Banooniga ciyaaryahanadu waxay macna yiraahdaan wanad kaliya diirada Banooniga saartaa ninkan 9 kama kala dhamaadaan bal runtii shan ciyaarta way joogtay marka waa ka ma la yaabaysi in xidig ugu fiican ciyaarta la siiyo Bedri xalay baan arkay Bukayo Saka maraan Arsenal ciyaarteed fiirsanayay maru 8 jeer kubadda taabtay lahaa Bedri 8 jeer kubadda taabto Barcelona badinayso kulamada Bedri uu 100 jeer ka yar kubadda taabto Barcelona ma badiyaan shalay kale waa kacsanaa mujeedin ya ninka saas u wareegana habeenka waa did aragto marka Bedri habeen kubadda soo ka jeefta oo inta taaban inta aragto ya waxa weeyaan Barcelona ma socoto marka uu qalmaa in la siixid ugu fiican ciyaar shalaad uu kacsanaa 4 iyo 10 jeer baa loo dartay xidig ugu fiican ciyaarta 25 ciyaar soo La Liga oo yaa la siinayaan Bedri hayn waka Arteta guushi shalay gaareen macna badan bay sameysay sanadkan waxay Arsenal la xisaabtamayaan kooxii dhibi jiray bay la xisaabtamayaan macnaha dadka qaar waxay dhijireen Arsenal kama faa'iideysato ay dhijireen wax walba wuxuu u muuqanayaa marka cid sanadka inay diyaar u yihiin inay horyaalka Premier ku guuleystaan 22 sano kadib saadash ugu badan bayna haystaan حتى Liverpool yaabay way qabaa midda Maxamed Salah midda maruu wuxuu yiri nimanka sanadkan ugu baqayo horyaalka inay qaadaan maxay aad bay soo haystaan haddii Mal Ibrahim uu lahaa Saliibo kan waa kiinima malinaya sanadkan buu lahaa ya Arteta marka ciyaarta wuxuu yiri ma taqaanaa wuxuu leeyahay sanadkan wax badan baan bedelnay uu leeyahay dadkiina dhibi jiray baan hadda la xisaabtamaynaa uu macnaha
kooxaha hadda aan ayaantan tumayno ku lahaa waa kooxaha lugooyadan ugu ahaa sanadii ugu dambeeyey marka wuxuu Arteta qabaa hadda macnaha in tani ay bedelayso historigoodii guuldarooyin historigoodii meel xun marada kaga dhacdo reelka qaadi waayay jireen wuxuu leeyahay tani waxay bedelaysaa wajiga xumaan lagu yaqaano waa in meel xun marada nooga dhacdo reelkana laga qaado marba haddii kuwiina dhibi jiray hadda aan ka tirsanayno waana runtiisiyo Newcastle West Ham iyo Fulham oo hadda dhibco ka qaadanayo 9 dhibcood uu ka helay sanadii ugu dambeeyay ku wareersanaa marka wuxuu ku yiri waxaan hadda arkaya uu leeyahay runtii isbedel cusub baan arkaya kuwii na dhibi jiray lugooyadan ugu ahaa haddaan ba tumayno yiri meel baan u soconaa yiri waana sax fiiri Newcastle markaad fiiriso Newcastle markaad fiiriso saddexdii ciyaar ugu dambeeyay mar guuldara ka soo gaartay markaan buu ka badiyay West Ham markaan ka hor maalin ka badinay ka hor laba guuldara ka soo gaartay dan guuldara ka soo gaartay ugu dambeyntii uu ka badiyay Fulham guuldara ka soo gaartay Baraju la galay ugu dambeyntii uu ka badiyay mujida marka Arsenal ilmihii dhibi jireen sanadkan hadday dhagaha ka tumayaan waaweynkiina ay la xisaabtamayaan hadda Arsenal meel u socota marka Arteta wuxuu leeyahay waxba ii muuqanayo leeyahay sanadkan inaan meel xun ku banjari doonin baan arkaya uu leeyahay runtii taa wata xilli tan iyo 2020 markuu kooxda yimaada Arsenal Gabriel uu yahay daafaca Premier League kulug tale goolasha ugu badan way runtii ya 20 gool buu kulug leeyahay dhalis xitaa laguma gaaro waa Ramos ka waqtigan iyo John Terry iyo Ferdinand-ka iyo ragii madaxdiisa buyoolkii madax soo doonan jiray dhalin jiray wayaan laakiin Timber hab u muuqdo isbitaal u muuqdo ninka murqaha waaweyn la qatar waa ilaa hadda waxa uu leeyahay runtii dambeed mid ka fiican Premier League si kala ma hayo marka la fiiriyo ratingkiisa marka la fiiriyo seasonkan zaid weeyaan baa leeyahay runtii intaasna waa inta Saudi waxaan iri Liverpool iyo Manchester City oo Arsenal kula tartamaya waxa jirta hal arin oo looga fiican yahay waxa kale ma aha City haalan hadii laga celiyo ma badin karaan gool lama dhalin karaan Liverpool Maxamed dad ka joojisid shaqo kuma lahayn ay badiyaan laakiin Arsenal waa kooxda kaliya season kan 10 ciyaaryahan kala duwan ay gool dhaliyaan marka hal ciyaarad gool ka sugto oo suu kacsi ama ka dhacmo kugu filan laakiin ninka maalin kasta kan furdaaminay taas waa malaha ka fiican ya Saud may marka idin lahaa hadda sidii halan laga jiifiyo oo dhamaad marka idin lahaa waxa laga yaabaa in taageernimo ay ku qaado istiraado maxaan aba waxay hayaan malak was asheegis Pep Guardiola Saud bay hadlay alarmi uu yiri ciyaartooyga Manchester wuxuu yiri san adduunka kuma dhaqan karno halan kuma tiirsanaan karno Pep wuxuu sheegay machine halan in Man City kaliis aynu ku socon karin wax kasta dhici karo yiri haddaan hadda isagoo caafimaad ku qabno ku mood maalmo ka jiifan doontaa maalin gool dhalin doonin maxaan samayn doonaa wuri waa saxo afar ciyaaryahan oo kala Foden Reinders Cherki iyo Mats Nunes ayaa siisakan waxay haystaan kaliya min goal bay haystaan bal runtii horyaalka ya halka garabuhu way sababtaan ku dhijir garabkooda way kaliitaan Savinio Duku iyo Bob wali aanu shabaq gaarin wala Umar Mush inuu dhaawac ka soo laabanay marka City waataan ku dhijir mar walba source ilaahay ku yaraaday City waa sababtaan ku dhahay City wax weeyaan inay meel u socon baad arkaysaa sourcigeeda uu ilaaha wax laga keenayo yar fiirintaas ciyaaryahan waxaan haysan marka Pep wuxuu yiri Saud dambeey waa in ciyaartooy kale ay istaagaan oo ay gool dhaliyaan marka kali ninkan kuma tiirsanaan karno yiri kaas already sikan 12 gool horyaalku City siiyo marka City ciyaaryahanadu u digayo marka go'ayna waxa la sheegay Crystal Palace ay sheegeen in 2-6 uu kooxda ka bixi doono waa ninka Liverpool ku dhawaaday hadda waan arki doono hadii Madrid uu ku beeri doono haduu Barca aadi doono iyo hadii Liverpool uu ku beeri doono Palace waxay Saud ma sheegeen go'ay inuu sheegay inuu isku cusboonaysiin oo free ku baxayo marka waa ninka la doondoonay suuqa soo aadan odayaashina waa ka xalay same isku mid bay xalay ahaayeen kabtanadii isku garankii ya celebrationkii ya 2-5 still wali daado iyagoo ay hayso waa jibaal falanayaan wasabta idin dhahayo niyow Benoniga Messi Ronaldo kadib dadka ku soo hari doonaan uu ku jugayaan wad arkaya waxay tiriyaan lama arko nimankan Benoniga wax weeyaan waa isoo shideen maqaarka nimankan waa isoo shideen ilaa hadda ku moodmoodayaa ma dadkana waxaan idinka taageertay maxay tiriyaan hadda sheeg aan ilaa hadda kuwana ku moodmoodaa barnaamijyada waxa ii qurxiyay waa raggan nimankan waa maalinta odayaashan baxaan kollay waxaan isleeyahay Maxamedow beeraha ma iska falad baan isleeyahay ma laga sheegay ilmaan on babandhigooda joogteen karin dadkii hadda isaaqi aad leedahay wacdareynay leedin aad dhahsa mirig ugu siinaya saskii la sheegay saan dhah mirig ugu siinay sanadka hor kacsana yogariski saxaayay hor xilligan kacsana 16 gool haystay 3 gool meel la maray saal ciyaar gool aan indhaha mirig ka siinay yaani dhalinyaradu ma joogteen karaan bandhigoodu
in dhifyar mooyaane oo waqtiyadan dambe Hurricane iyo Mbappe iyo kale iyo ya Haaland oo kale iyo ya marka wax kale weeyaan nimankan habeenkii markii hore lixdiisa habeenkii 6 saac marka la joogo hore Ronaldo iga qeylisay markuu goolna caawiyay ya kadib Messi diqiirka soo galay saaka subaxii waa ka 3 gool asagoo wata iyo hal caawin marka ilaa hadda iyagoo da'daas jira way namada daalinayaano war waxaan taageertaa ilmo waxay tarayaan lama arko ya me labadan nin inaba caadi mahano cimadooda lama haysan karo marka Lionel Messi imku 889 gool maxaa maalo 886 maleyno 889 gool waa 12 gool baa ka harsan 9kiisa 100 gool waliba Ronaldo marka la eego isagana waxa weeyaan xali markuu dhaliyo waxay ugu dhigan tahay kaliya kutigo gool ugu harsan tahay kunkii gool kunkan waa soo dhaweyn aniga Brian 40 u gilna hal isbuuc soo socda kadib 40 heblowa ka dhiman wad maqli doontaa 33 gool buu dhalinkan 36 ciyaarood waa Ronaldo 2025 sanadkan 40 jir baa la maraya 25 jir mo 33 gool 36 ciyaarood baa la maraya 33 gool wuri 36 ciyaarood goolashii iyo kulmadii saas isku ag joogaan Lionel Messi weydii 29 gool horyaalka seasonkan 19 goolna waa la caawiyay وانا عيريان كو وري تاريخ MLS ka la arkayo laba sano isku xigteen ku guuleysanay xid ugu fiican ciyaarta waxaan wax kale waa ya marka Joe Felix baan waa la arkay in Saudi meesna ma taqaana uu cimaamaday waninka hadriga dhaliye waninka uu goolasho badan Nasr de ninka speed ah xalay loo kala kiciyay Cristiano Ronaldo ilaah u jibiyay faro u saaray Instagram-kiisa soo geliyay gurbaanku garaac dhahay cunugaas intaas sano jaqjaqleynay ya waxa weeyaan dhunta kala go'day intaas sano kadib uu zuu ku hay xalay baa loo cimaamaday Ronaldo habeenka iska farxsan buu ku soo aaday ya kulay kalba aduu ninkan Sacuudiga joogo waxaan isleeyahay Ronaldo ama ninkan YouTube ka ku shidi doona ayaan wax ma soo geliyay maanta waxaan aragnayo isbiidkii xalisas lagu cimaamaday oo odago follow yiri Ronaldo follow isbiid daha uu ku adkeyn jiray ya oo xalay gurbaan garaac yiri oo si fiican ugu cimaamaday kulay waraysi jiri doona qiyaasaya ya maxay la odago markii YouTube-kiisa ka wardo waxaan odago ayaantan isbiid cawasa ugu cimaamaday odago dan waaba kale isbiid maxaa ya isbiid weynku wuxuu kamid yahay YouTube kamid yahay ya dan waaba kale soo fiirinaysa YouTube-kiisa ayaantan waa fadhiya odago hal bil ka hor ugu dambeysay muuqaalka sadbilkii ka sii hor 3 bil ka hor ugu dambeysay odaga ayaantan waxa ma jiidi karo macnaa mar dhaxas wuxuu rabay inuu ninkii Master Beast garaac u rabay Master Beast wuxuu yiri kulay aniga Ronaldo inaad garaac darabto iga taageero badis rabto kulay waa adiga la war macnaa aniga studio isirto iska dhaxtaalo war macnaa qolka aan jiifto la studio waa soo kaca waa duuba war aniga aruuxas ma gali karo hatta war aniga waa isduuri qabriyaan dhax galay cirkaas aan fiinta saraan aan fuulay aruux yiri marka kabtas ma gasho karo adila wal macnaa dad inaad gashato kabtida rabto soo socol Ronaldo marka cunuga inuu kala kicina meesh qiyaas ila cunuga xalo aad ugu cimaamaday ila dantu kale ma yara Juventus waa la garaacay waa sawt ugu leey Fabregas tababar soo baxay weeyaan kooxaha Yurban baa doondoonaya Fabregas teamkiisa Coma orey Como ilma yar aruusadeen labay ku dhufteen cajuusta ya oo maalud Milan ka badiswaade Coma iminku shanaad buu geeyay kadib guuldaradii Juventus ay dhigeen Fabregas tababar ku soo baxaya warninkii Anthony warnada ninkii ka tagay waa kareysta waxa lagu leeyahay asagoo 96 kulan u ciyaaray Man United 12 gool kooxdu siiyay 5 buu caawiyay Man United haddana asagoo 2 kulan kooxda kaliya u ciyaaray wuxuu siiyay bats gool ka badan intuu siiyay Man United 12 gool balas 6 caawin ya kulul lahaanshu intuu ku sameeyay badan baa la runtiyo taasna waa taa Razaara Ingiriiska waxa uu wali bush gareynayaa inuu go'aankii ciidan Israa'iil taageerashooda looga diiday garoonka Aston Villa inay soo galaan inuu dib u soo celiyo oo yaani go'aankaas joojiyo oo loo ogolaado taageerashada garoonka soo galaan laakiin hadda uu ku dhibaatoonaya baa la runtii booliska waxay yiraahdeen maalin Birmingham waxay yiraahdeen war magaalada muslimka ku badan ciidan in waxyaalaha soo gaari karto anaga ciidan ma ilaali karno dawladda ogaada marka madaxda Ingiriiska marka mas'uuliyiinta oo ninkan ugu horeey waxay yiraahdeen macquul ma waxa maxad booliskani maxad shaqada ka qabanaysaan maxad haysaan baalri taageerasha loo ogolaado garoonka inay soo galaan reer Israa'iil dadkoodana ha taageeraan reer Israa'iil waa suuxna waxay yiraahdeen hadii saas ay tahay aniga garoonka la diidayo Aston Villa taageerasha ciyaartiisa soo galin waba Aston Villa daawanay galabtay ya gool bay maraysaa inkastoo away ay yihiin marka ciyaartan oo 6 November dhacaysa kooxda Maccabi Tel Aviv bay la ciyaarayaan marka amaankooda ayaa loo cabsaday meesha magaalada waxay tahay magaalada lagu dadka islaamka badan waayaan Ingiriiska marka waxa dadka haday meesha simaadaan in yaani buuq loo geystay dagaal baa laga baqayaa
sida maalid ku soo qabsatay Amsterdam Holland marka wasaaruhu wuxuu raa go'aankaas oo dadkan looga joojiyay in aysan garoonka soo gelin inuu ka hortago oo uu ogolaaday in garoonka soo galaan ilaa hadda laakiin wuu dhibaatoonaya runtii go'aankaas inuu dib u soo celiyo yaa uu ka dhibaatoonay walow UEFA iyo hadda ay ka fariisan doonaan arrintaasi arrintan loo aqbalaa laakiin booliisku waxay leeyihiin arrintan ma laga fogaado meeshaan yaa ciidahan kala ku badan ayaa leeyahay runtii muslimiinta marka waa ka waryaha habeenku Argentina iyo Morocco ba ciyaari doona da'yaradoodii koobkii adduunka wayaan ee garsoorii Soomaalida looga wacay Cumar Cartan markii uu horeysay taariikhda garsoore Soomaali FIFA ciyaarida loo dhiibay ahayd marka Morocco iyo Argentina ciyaartooda marka waxa weeyaan caaway soo galaysaa waa koobka 20 jirada ciyaartooyga da'da ka yar maalid ciyaartooyda Argentina waxay daawanayeen berigii Messi uu ku guuleysanayay 2005 koobka kan da'irada adduunka ay daawanayeen runtii markaas xataa Messi man of match ka macnaha goolintii xataa ku guuleystay tartanka marka waan arki doonaa Argentina 2 jeer bay ku guuleystay muddooyinkii ugu dambeeyay tartankan war asxaabtay nabadgelyo